madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo ka dul tallaabsaday Soomaaliya oo laf dhuun gashay ku ahayd horumarka Soomaaliland ayaa la isweydiinayaa sababta u suurtagelisay guulahan diblomaasiyadeed ee taariikhiga Janiska waddanka Imaaraadka Carabta uu siiyay Somaliland ayaa noqonaya fursad kale oo dahabiya oo ku soo biirtay fursadihii aqoonsi ee ay Jamhuuriyadda Somaliland haysatay haddaba halkee ayay ku dambeysay Soomaaliyadii xiriirka u goyn jirtay waddan kasta oo Somaliland macaamil la yeesha ama si soo dhaweeya maxayse tallaabooyinka noqonaya ictiraafka caalamiga ah ee Imaaraadku qaaday uga qaadi waayeen tallaabo ka hortag ah warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa guulaha waaweyn ee uu horseeday safarkii madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo diblomaasiyiintii Soomaaliya oo ku jira Miir Doorsan iyo Stondon uqaadan waa ayay ku noqdeen afariir iyo amanka guulaha waaweyn ee ay ka gaareen waddanka Imaaraadka Carabta wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo si lama filaan loogu casimay shirweyne uu ka qayb gali jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo magaca Soomaaliya laga ilaaliyay in halkaasi lagu soo daabaco ama se waddanka Imaaraadka Carabta uu saami ku bixiyo tanina waxa ay cadeynaysaa siyaasadda waddankan iyo imaaradahan midoobay inay u soo jahaysteen dhinaca Somaliland inay wax la qabsadaan wasiirada ka tirsanaa Soomaaliya ee shirkaasi ka qayb galay oo ahaa kuwa aan la arkin ama se aanay isha kamaradu qaban ayaa waxa casuumadda ay ku haysteen inay ka socdaan Somaliland oo ah waddan madax bannaan oo Afrika tanina waxa ay noqonaysaa bahdilaad meeshii ugu hooseysay ee dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya ayaa si tallaabooyinka cadcad ee ka dhigan aqoonsiga caalamiga ah kaga jawaabtay aamus haddaba maxay sababtu tahay ayaa la isweydiinayaa wadamada Somaliland soo dhaweeya ama se cilaaqaad furfuran kula dhaqma ayaa Soomaaliya ay burka u qaadan jirtay iyada oo xiriirka u goyn jirtay iyo tallaabo kasta oo ay awoodo oo ay kaga hortagayso tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay Somaliland qaaday balse way ka aamustay tallaabada waddanka Mareykanka ka socota ee kacdoonka aqoonsiga iyo tan haatan raadkeedu cusub yahay ee uu horkacayo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro xildhibaanayaasha faraqeeya siyaasadda geeska ayaa ku tilmaamay tani inay tahay laba qodob oo uu ka koobaad yahay caalamka ayaa Soomaaliya ku daalay waxaana ka dhamaaday biyihii wajiga ama se intii rajo laga qabi lahaa inay Soomaaliya soo kabato iyada oo Somaliland ay buruusishay tallaabooyinka ay qaaday oo ay ka tahay nabadgelyada xasiloonida doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda kuwaasi oo laf dhuun gashay ku noqday dhammaanba wadamada deriska la ah ee aqoonsiga caalamiga ah haysta oo suurto gelin kari waayay tallaabooyinka waxaana la gaaray xilligii albaabada laga xidhan lahaa Muqdisho iyo diblomaasiyiinteeda oo adduunku uu la shaqayn lahaa Hargeysa iyo diblomaasiyiinta horumarka sameeyay ee ku tallaabsaday tallaabooyinka muuqda ee waaweyn laba diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland oo xawli ku socotay sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa ay dhaaftay intii uu garanayay Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo qaaradaha si weyn uga gudubtay oo wax la joojin karayo aan haatan ahayn waddanka Imaaraadka Carabta ayaa ku taageera dhaqaale tiro badan sidoo kalena waxa uu ku lahaa Soomaaliya deyn tiro badan oo qayb ka mid ah maalinimadii shalay ahayd ka cafiyay tanina waa sabab kale oo aanay Soomaaliya awood u lahayn waxna isaga celin karin maanta kacdoonka waddanka Mareykanka ka socda ee aqoonsiga iyo tallaabadan aqoonsiga ka dhigan ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu horkacayo ee ka dhacday iyaduna waddanka Imaaraadka Carabta ayaa uu aamus kaga jawaabaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maadaama oo aanu lahayn awood uu wax kaga qabto warbaahinta Soomaaliya ayaa si weyn u qaadaa dhigaysa 24 saacadood ee ugu dambeeyay guulaha waaweyn ee ay Somaliland ka gaadhay waddanka Imaaraadka Carabta iyo shirweynahaasi ka dhacay sida Soomaaliya loogu bahdilay iyo sida aanay wax tallaabo ah uga qaadin xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo oo ay sheegayeen in wixii midnimada ay u yiqiineen khasabka ahaa ay kala dhantaalmeen oo waddanka Imaaraadka Carabta uu halis ku yahay hase yeeshee ilaa iyo haatan xukuumadda Soomaaliya kama ay jawaabin kamana jawaabi doonto sida xildhibaanayaasha falaqeeya siyaasadda ay odorosayaan